Sanadkii 1910kii, injineer u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Nathaniel Baldwin ayaa miiskiisa jikada ku alifay sameecadaha dhagaha ee loo yaqaano aerophone-ka, oo xilligaas lahaa muuqaal ka duwan midka ay maanta leeyihiin. Marxalado kala duwan oo ay soo mareen kadib, maanta waxaan joognaa in la isticmaalo sameecadihii dhagaha oo aad u yaryar isla markaana wireless ah. Ma doonayo inaan ku sii dheeraado ka hadalka taariikhda aerophone-ka ama sameecadaha dhagaha, balse muhiimaddu waa inaan aragno faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay u leeyihiin bulshadeena. Markii laga fiiriyo dhinaca faa'iidooyinka, aerophone-ku waa saaxiibka koowaad ee taleefanka. Waxaa fudud in la isticmaalo, waxaad awoodaa inaad dhagaysato wax aysan maqli karin dadka kale, iyo inaad qof wici karto kuna jari karto koolka adiga oo aan soo qaadin taleefankaaga. Qaaditaankooda oo fudud, xilligii aad doonto ayaad u qaadan kartaa meeshii aad doonto. Dareen raaxo oo aad dareemayso marka aad isticmaalayso sameecadaha dhagaha kuna jirto jawi degan. Tayada codka, waxaad si nadiif ah u dhageysan kartaa codkii ama muuqaalkii ku jiray taleefankaaga. Yaraynta buuqa, waxay hoos u dhigi karaan qaylada iyo sawaxanka hareerahaaga markii aad isticmaalayso sameecadaha dhagaha. Dhinaca kale, maadaama aerophone-ka isticmaalkoodu fudud yahay, dad badan ayaa aad ula qabsaday. Qabatinka sameecadahan ayaa dadka u keeni kara dhibaatooyin badan. Waxay badi keentaa dhibaatooyin caafimaad. Aynu aragno qaar ka mid ah faa'iido darrada isticmaalka aerophone-ka. Dhaga xanuun, waxaan dareennaa xanuun daran kadib isticmaalka dheer ee aerophone-ka. Waxaa kale oo laga yaabaa inaan dareenno gariir qayb dhegta ka mid ah. Waxaa inta badan keena dhageysiga muusiga iyo codadka dhawaaqa dheer. Ilowshaha dunida dhabta ah. Dadka qaar marka ay isticmaalayaan aerophone-ka waxay iloobaan la xiriirka dadka kale. Qaarkood xitaa kama warqabaan waxa hareerahooda ka dhacaya. Dad badan ayaa la kulma shilal iyagoo ka gudbaya wadooyinka. Maqalbeel, aerophone-ku waxay bixiyaan tayada codka ugu fiican, laakiin sii wadida isticmaalka aerophone-ka ayaa horseedi karta dhumis maqal, taas oo naga dhigi karta dhagoolayaal dhammaystiran. Saamaynta maskaxda, gudaha dhegta ee jirka bini'aadamku waxay xiriir toos ah la leedahay maskaxda. Sidaas awgeed, dhaawaca ku yimaada dhegta waxay sidoo kale saamaysaa shaqada maskaxda. Caabuqa dhagaha, waxaa laga yaabaa aerophone-kaaga inaad la wadaagto dad kale si ay wax ugu dhageystaan. Ficilkani waa mid saaxiibtinimo leh, laakiin haddii aerophone-kaaga uu isticmaalo qof qaba caabuqa dhagaha oo aad dib u isticmaasho, waxaa laga yaabaa inaad qaado jeermiskii qofkaas. Isbarbardhig, si aan isbarbardhig u samayno isla markaana u ogaano mid ka badan dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka aerophone-ka, waa inaan soo qaadanaa labada kafadood ee miisaanka wax lagu cabbiro, kadibna aan midka hore saarnaa faa'iidooyinka halka kan kalena aan saarayno dhibaatooyinka laga dhaxli karo isticmaalka aerophone-ka. Isticmaalkooda oo fudud oo lagu daray qaaditaankooda oo fudud, dareen raaxo, tayada codka, yaraynta buuqa ayaa u dhiganta 76% inay faa'iido noo leeyihiin. Halka dhaga xanuun, qabatin, ilowshaha dunida dhabta ah, maqalbeel, saamaynta maskaxda, caabuqa dhagaha ay u dhiganto 100% inay saamayn ama dhibaato nagu leeyihiin. Taasina waxay caddaynaysaa in ay badan tahay dhibaatada laga dhaxli karo isticmaalka aerophone-ka. Way fiicnaan lahayd inaan gebi ahaanba joojino isticmaalka aerophone-ka, balse haddii aysan taasi dhacaynin, waa inaan yaraynaa isticmaalka joogtada ah ee aerophone-ka si ay u yaraato halista caafimaad ee ka dhalan karta. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, channelka subscribe saarto, sidoo kalena aad gambeelka furato. Mahadsanid.